kulanti wanaagsan khiyaarta nala socota idilkiinba meel kasta oo aad joogta iyo tabintan haddii uu rabbi saamaxana waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda Mareykanka ayaa amray in la bilaabo tijaabooyinka nuclear-ka waddankaasi Mareykanka iyadoo amar buuxa la siiyo wasaaradda dagaalka ee dowladdaasi hase haatee tallaabooyinkan waxaa ka hor yimid dowlado quwado leh oo ay ka mid yihiin wadamada Shiinaha iyo Ruushka oo ku tilmaamay tallaabooyinka Trump iyo amarada uu bixinayo inuu yahay dab lagu ciyaarayo aan loo baahnayn xilligan in lagu degdego haddaba Trump waxa uu uga jeedaa tallaabooyinkan uu qaaday waxa uu doonayaa inuu ka jawaabo gantaalihii Ruushka maalmihii ugu dambeeyay uu sameynayay iyo waliba maraakiibtii aan naaquudaha lahayn ee gujisyada ahaa ee nuclear-ka xambaaranayay oo uu ku dhawaaqay in si tijaabo leh oo quruxsan loo sameeyay madaxweyne Putin warbaan idinkaga hayaa walaac ayaa ka soo baxaya dhinaca wadamada NATO isla wararkaasi haddii aan si eego wadamada NATO dowladda dalka Turkiga ayaa maanta madaxdeedu waxay kulan la yeesheen dowladda Jarmalka ninka hogaamiye Friedrich Merz lagu magacaabo waxna uu leeyahay Jarmalku waxa uu ka shaqeyn doonaa in Turkiga uu xubin buuxda oo firfircoon uu ka noqdo wadamada qaaradda Yurub ee ku midoobay ururkaasi ballaaran iyadoo tani haddii ay meesha soo gasho macnaheedu uu yahay in Yurub ay helayso tiir ballaaran oo xagga awoodda ah laakiin madaxweyne Erdogan ayaa qudhiisa war aad u ballaaran oo yeedadiila la jeediyay dowladda Sacuudi Arabiyana waxa ay warbaahinteedu caawa tafaasiil ka bixinayaan isbitaalka Al-Fashir ee dadka lagu xasuuqay ee waddanka Suudaan ku yaala waxay leeyihiin inagu waxaan halkaasi u geynay isbitaalka iyo qalabka si dadka loo badbaadiyo laakiin halkaasi waxay noqotay xarunta rajabeelka iyo dhimashada xilli gacanta lagu soo dhigay dilaagii weynaa ee Abu Lulu oo isbitaalkaasi dadka ku baabiiyay abada nuclear-ka ee dalka Mareykanku ay leeyihiin xilli maalmihii ugu dambeeyay dowlado ballaaran oo adduunka ay qaadeen tallaabooyin kuwan u dhigma hase haatee caalamka ayaa iminka muujinaya tartan dhinaca nuclear-ka taas oo khatar gelinaysa xasiloonida iyo amniga iyo waliba arrimaha la xiriira heshiisyadii hore loo galay oo hadda u muuqanaya meesha inuu ka baxayo qaramada midoobay waxay leedahay dowladahan quwadaha leh waa inaanay ku xadgudbin qaanuunka caalamiga ah oo ah dabarka kaliya oo hadda isku haya hanaanka dhismaha dowladaha adduunka Mareykanka ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in dalkiisa uu dib u bilaabayo tijaabooyinka hubka nuclear-ka tallaabadaasi oo ay qubarada ku sheegeen inay dib u soo celin karayso tartanka hubka nuclear-ka ee dunida iyo xiisadaha siyaasadeed ee u dhaxeeya Washington, Moscow iyo Beijing. Trump ayaa sheegay Khamiistii go'aankaasi inuu ku saleysan yahay barnaamij tijaabo ah oo ay wadaan dalal kale isagoo faray wasaaradda dagaalku inay dib u bilowdo tijaabooyinka hubka nuclear-ka oo ay kala sinaadaan wadamada kale waxa uu intaa ku daray in Ruushka iyo Shiinuhu ay u muuqdaan tallaabooyinka nuclear-ka oo ay sameynayaan sidaas darteedna Mareykanku waxa uu u baahan yahay in uu sidaasi oo kala sameeyo oo aan meel cad looga tagin ayuu ku baaqay hase haatee dowladaha Ruushka iyo Shiinaha waxa ay si weyn uga soo horjeesteen tallaabooyinka Mareykanku uu qaadayo iyagoo bixiyay jawaab degdeg ah soo qaatay qaanuunka caalamiga ee la xiriira dhinaca tijaabada nuclear-ka adduunka oo ay ku tilmaameen in aan la aqbali karin oo la yiraahdo CTBT Shiinaha ayaa ku baaqay in Mareykanku uu ixtiraamo heshiiska caalamiga ee mamnuucaya tijaabooyinka nuclear-ka ee CTBT halka Ruushku uu sheegay in tijaabooyinkii u dhawaan sameeyay ee gantaalka cruise-ka uu ku shaqeynaya tamarta nuclear-ka aysan ahayn tijaabooyin hub nuclear ah uu hadda ka jawaabo dalkaasi Mareykanka talaabadan waxa uu Trump ku dhaqaaqaya isagoo maanta la kulmay madaxweynaha waddanka Shiinaha Xi Jinping kulan qaatay 1 saac iyo 40 daqiiqo oo labada dhinac ay kaga wada hadlayeen xiisadaha dhaqaalaha iyo canshuuraha isku soo rogeen qaramada midoobay ayaa ka jawaabtay hadalkan waxana ay tilmaantay afayeen u hadlay xogayaha guud ee qaramada midoobay oo lagu magacaabo Farxaan Xaaq waxa uu yiri tijaabooyinka nuclear-ka aan la ogolayn xaalad kasta ha ahaatee waa kuwa aan loo baahnayn hadda in lagu dhaqaaqo
wuxuu carabka ku adkeeyay in qubarada nuclearka qataraha ay ka digayaan hadda ay yihiin kuwo aad u sareeya isla markaana loo baahan yahay in la ilaaliyo tallaabo kasta oo keeni karta xisaab qaldan ama koror siyaasadeed oo leh cawaaqib halis ah oo si isku mid ah adduunka loogu ciqaabayo caalam cusub oo nuclear ah ayaa gudaha loo galay xilligan aan idila hadlayo qubarada militariga cilmi baarayaashu waxa ay tilmaamayaan qaarkood oo la hadlay wakaaladda wararka Faransiiska AFP in hadalka Trump uu yeelan karo dhowr macno oo kala duwan ilaa iyo 3 ujeedo ayaa loo fasiri karaa ay qubaradan tilmaamayaan waa mare inuu ka jawaabayo tallaabooyinkii ay qaadeen wadamada Ruushka iyo Shiinaha ee jawaabaha iyo waliba tijaabada nuclearka in uu doonayo in la sameeyo tijaabo aan halis ahayn oo ay ku tilmaameen non critical tests taas oo aan qaraxyo waaweyn ka dhalan karin oo qatariye ka iman karayso waa marka saddexaad in uu si dhab ah uu kaga hadlayo tijaabooyin nuclear oo buuxa taas oo saameyn karta baalayiri dalal kale marka laga reebo Kuuriyada Waqooyi oo 6 jeer tijaabadan oo kala sameysay intii u dhaxaysay 2006 ilaa iyo 2017 qabiir Faransiis ah oo lagu magacaabo Elios Fiat ayaa sheegay in Trump laga yaabo inuu si buuxda u fahmin baalayiri dhinacyada farsamo ee tijaabooyinka nuclearka balse haddii uu la jeedo tijaabooyin dhab ah taasi waxay noqon kartaa horumar ama qatar ku ah xaaladda guud ee adduunka iyo waliba dagaalada qabow ee hadda guntooda lagu jiro wadamada ku midoobay NATO waxa ay sidoo kale tilmaamayaan in fahan la'aan ay abuuri karayso in dawlado waaweyn oo adduunka ay gacan isku qaadaan William Albertio oo hore u ahaa agaasimaha xarunta kahortaga faafidda hubka ee NATO ayaa sheegay in hadalka Trump laga yaabo in uu ahaa falcelin toos ah oo ku wajahan Ruushka iyo barnaamijyadiisa cusub ee hubka gaar ahaan gantaalkii uu dhawaan sameeyay ee waliba doontii iyo waliba aan iraahday gujiskii aan qoodiyaha lahayn ay nuclearka xambaaranayay oo ay ku dhaqaaqeen in ay tijaabiyaan dawladda Ruushka si kastaba waxa uu sheegay in Mareykanku uu hore u sameeyay tijaabooyin cusub oo aan qaraxyo lahayn isla markaana tijaabooyinka gantaalka la yiraahdo Trident ee lagu sameeyo badaha ay noqon karayso kuwa aan hadda qatar weyn lahayn haddii uu Trump kuwaasi ula jeedo dalalka Mareykanka Ruushka iyo Shiinaha waa wada raacsanahay baalayiri ama waxay wada raacsan yihiin hal nidaam oo la mid ah marka la eego xaaladaha tillaabooyinkan ay hadda qaadayaan oo dunida qatar weyn ku abuuri karaya dalka la yiraahdo Turkigana iminka waxa uu helayaa dawlad kamid ah kuwa quwadda leh ee codadkeedu sareeyaan ee wadankaasi ama qaaradda Yurub oo hadda doonaysa inay si weyn qayb uga noqdaan guud ahaanba ururkaasi maanta waxaa magaalada Ankara booqday ra'iisul wasaaraha wadanka Jarmalka Friedrich Merz kaas oo la kulmay baalayiri madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyagoo isla soo qaaday xiriirka labada dhinac doorka Turkiga uu ku yeelan karo haddii uu ku biiro wadamada Yurub iyo waliba tallaabooyinkaasi in labada dhinac ay si wada jir uga shaqeeyaan Erdogan wali waxa uu muujinayaa rabitaankiisa ku aadan in uu qayb ka noqdo wadamadaasi si uu uga helo gaashaan nabadeed iyo waliba in uu dhaqaale ballaaran ka faa'iido maadaama dad fara badan oo wadankiisa ay hadda ku fiirsan yihiin qaaradda madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay inuu si aad ah uga rajo weyn yahay in Turkiga uu horumar weyn ka sameynayo wada hadallada ku saabsan xubinimada midowga Yurub haddii midowga Yurub uu si dhab ah uga jawaabo dadaalada iyo go'aanada adag ee Ankara ay ku doonayso inay xubin uga noqoto guud ahaanba ururkaasi hadalkan ayaa lagu sheegay shir jiraayad oo ay wada qabteen ra'iisul wasaaraha Jarmalka Friedrich Merz kadib markii ay kulan la yeeshay Erdogan isagoo ku sugan magaalada Ankara Erdogan ayaa tilmaamay in Jarmalku uu yahay saaxiibka ugu weyn ee ganacsiga Yurub ee Turkiga uu leeyahay isagoo xusay in labada dal ay doonayaan isku socodka ganacsiga in ka badan 50 bilyan oo hadda uu marayo in la gaarsiiyo 60 bilyan oo dollarka Mareykanka muddada dhow waxa uu sidoo kale sheegay muhiimadda ay leedahay
jaaliyadda Turkiga ee ku nool wadankaasi oo dhaqaale aad u ballaaran ku sameysay. dhinaca midowga Yurub Erdogan waxa uu yiri haddii midowgu uu si dhab ah u muujiyo rabitaan iyo taageero waxa suuragal ah in horumar weyn la gaari karayo, taas oo muujinaysa inay muhiim arrintaasi u tahay labada dhinac. marka laga hadlayo warshada difaaca madaxweynuhu waxa uu sheegay in la joogo xilligii la iska kaashan lahaa mashaariicda wadajirka ah ee ku aadan difaaca iyo amniga iyadoo caalamku uu haatan si weyn isku bedelayo. waxaan rabnaa buu yiri inaan aragno Turkiga oo gudaha Yurub fadhisa isla markaana qayb ka noqonaysa dadaalada waaweyn ee hadda socda. dhinaciisa ra'iisul wasaaraha Jarmalka Friedrich Merz ayaa sheegay in dalkiisa ay rabaan inay kaalin weyn ka qaataan Turkiga inuu xubin ka noqdo midowga Yurub, isla markaana Ankara ay wax weyn ku soo siyaadin doonto labada dhinac. Merz waxa uu ku safeeyay Turkiga inuu yahay qodob muhiim ah oo saameyn weyn ku leh dhammaan arrimaha siyaasadda iyo amniga Yurub. arrimaha caalamka ee la isla soo qaaday waxaa ka mid ah Syria oo dowladda Turkiga ay muhiimad weyn u aragto, dagaalka Ruushka iyo Ukraine oo labada dhinac ay isla fiiriyeen, xabad joojinta laga gaaray Gaza iyo waliba in dhinacyadu ay hadda ka shaqeeyaan arrimahooda iyaga gaarka u ah sida uu qeexay Recep Tayyip Erdogan. ugu dambeyntiina dowladda Saudi Arabia ayaa ka walaacsan tacadiyada bini'aadanimo ee ka dhacay wadanka Suudaan, gaar ahaan magaalada gobolka waqooyi galbeed xarunta u ah ee lagu magacaabo Al-Fashir waa Darfur, halkaasi oo nin manaxa ah oo lagu magacaabo Abu Lulu oo dad fara badan oo masaakiin uu ku toogtay. dowladda Sacuudiga waxay tilmaantay isbitaalkaasi inay ku bixisay dhaqaale fara badan si naxariis loogu muujiyo dadka rayidka ah, hooyooyinka umulaya iyo kuwa u baahan in jirkooda dib loo soo celiyo ay nafaqa darradu ku dhacday. hase haatee tillaabooyinka ka dhacay dowladda Suudaan gaar ahaan magaalada Al-Fashir waxay ku tilmaantay kuwa ku reebay dowladda Sacuudiga caloolyow, sida lagu sheegay war kooban oo ka soo baxay wasaaradda amuraha